Bismillahirrahmanirrahim waxaan u wanaagsanaa qayaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo maanta qaabilay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo maanta magacaabay xubno cusub oo ka tirsan golihiisa wasiirada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo go'aamiyay qiimaha la iibinayo manhajka waxbarashada Puntland golaha deegaanka degmada Bardaale oo maanta la kala diray taliyaha ciidamada lugta oo gaaray deegaana ka mid ah gobolka Hiiraan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle oo gaaray degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac